السلام عليكم markaad barato inaad naftaada ku tiirsanaato waxaad noqon doontaa mid aad ugu faraxsan nolosha waxaad ku qurux badan tahay naftaada laakiin aad waxa u foolxun marka aad isku daydo inaad qof kale noqoto waxa fiican inaad wax dhamayso oo aad mid kale bilowdo intii aad naftaada xiri lahayd adigoo rajaynaya wax aan macquul ahayn xusuusnow kalinimada waxa loogu talagalay inay ka caawiso inaad ogaato qofka aad tahay iyo inaad joojiso inaad dibadda ka eegto naftaada iyo qiimahaaga waxaad kaliya u arki kartaa kuwa kale si cad sida aad naftaada u aragto waxaad siin kartaa fursad kale ama waad cafin kartaa sii dayn kartaa iyo naftaada siin kartaa fursad wanaagsan naftaada isku caday ee dadka ha isku cadayn jooji inaad dadka kale la tartanto oo bilow inaad la tartanto naftaada iska ilaali inaad bilowdo inaad naftaada ku aragto indhaha kuwa aan ku qiimaynayn ogow qiimahaaga xitaa hadaysan ogayn weligaa ha ka baqin inaad tusto qofka aad tahay sababtoo ah inta aad naftaada ku faraxsan tahay qof kale ra'yigiisu ma jiro qofka ugu weyn ee kula tartamaya waa inuu had iyo jeer ahaadaa naftaada isdhiirigelinta ayaa furo u ah la'aanteed ma guulaysan doontid nolosha waa inaad xasuusataa dadkii hore kuu sameeyey wax wanaagsan oo aadan naftaada u qaban karin u noolow nolosha sidaad rabto ma aan siday dadku kugu rabaan si kasta oo aad isugu daydo inaad qof kale noqoto ma shaqaynayso naftaada noqo oo taasi way dhici doontaa ilaahay tala saaro cidnaha tala saaranin